waqtiga ayaa ciriiri kugu ah Soomahan oo waqti ma haysatid hagaag ka waran hadii aan ku siiyo 365 saacadood 9 week 2 bilood oo dheeri ah sanadkii maxaad ku samayn lahayd faa'iidadaas iyo waqtigaas dheeriga ah ayaan ku falanqeyn doonaa kulankeena maanta ee kelmadiisu tahay halka saac ee ah dahabiga. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. inta badan marka qofka aad tiraahdo wax iska bedel naftaada hormari samee wax noloshaada wanaajinaya wuxuu ku cudur daaranayaa inuusan waqti haynin ama waqtiga ciriiri uu ku yahay ama waqtiga uu ku yar yahay war wax hebel tijaabi waxaan sameeyay waqtiga igu yar ama xataa mararka qaar asaga laftigiisa intuu arko wax wanaagsan oo uu jeclaysto inuu sameeyo ayuu si hoose isula hadlaya uu leeyahay laakiin niyo waqti uma helaysid waqtiga kugu yar isla qofka isaga ah ayaad arkaysaa isaga oo ku sii jeeda wararkii oo maanta oo dhan taabacaya ama la socda ama akhrinaya ama baaraya arimo ku saabsan siyaasadii wararkii yaa loo magacaabi doonaa ra'iisul wasaaraha cusub mareeqan saxa laga soo saari doonaa mise reer quraca laga magacaabi doonaa iyo wararka la mida ma wakaalad warar ayaa tahay adiga mise waxaa tahay siyaasi saameyn ku leh siyaasadda oo wax ka bedeli kara inta midna ma tihid sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad diiradda saarto dantaada oo aad raadiso waxa raadka wanaagsan uga tagaya noloshaada waxaa sidoo kale la mida walaalo iyagana waqtigooda intiisa badan ku bixiya dabagalka ciyaaraha sida caadiga ah waa wax entertainment iyo raaxo loogu talagalay oo waqti yar in lagu nasto loogu talagalay laakiin waxaad arkaysaa qofkan inuu dabagaliyo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda halkuu maraya ciyaaryahankee la soo iibiyay koox hebel ciyaartooyda la soo wareegtay bal intaas kaliya ma ahane wuxuu xataa raacayaa ama uu dabagalayaa qofkan ama ciyaaryahankan hebel la yiraahdo ee koox hebel u ciyaara subaxii muxuu sameeyaa markuu soo kaco tafaasiisha intaas la eg iyo faahfaahinta intaas la eg ee noloshiisa ku saabsan ayuu dabagalaya wuxuuna ku leeyahay hadhowti markaad tiraahdo wax hebel sameeyay noloshaada isu bedesho wax hebel sameeyay aad isu hormariso oo laga yaabo waxyaabaha aad u tilmaamayso amaba ay mudan tahay inuu sameeyo ay saameyn weyn ku leedahay xataa caafimaadkiisa mararka qaar inuu ku yiraahdo waqti uma hayo oo waqti ka dhabeero arinta ah ama cudurdaarka ah waqti ma hayo waqti ma heli karo aniga maxamed oo isoo martay marar fara badan oo ku cudur daaran jiray markii wax wanaagsan la isoo bandhigo ama waxyaabo nolosheeda wax ka bedelay sidoo kale walaalo aan fadhiyo coaching siiyay oo jaamacadda aan wada joognay oo waliba dhiganayay kulliyadda caafimaadka oo ah kulliyadka aadka u mashquulka badan oo aaminsan inayna waqti haynin fadhiyaan la galay waxaan fiirinay waqtiyo badan u soo baxay markaas ka dhaadhicinaad waqti haynin waqti waad haysataa laakiin ma taqaanaa sida uga faa'iideysan lahayd ma taqaanaa sida u beeqaamin lahayd ma taqaanaa sida u badin lahayd oo u bulaarin lahayd ma taqaanaa sida diiradda u saari lahayd oo saacadda dahabiga ah waqtigaaga inta soo saaratid aad uga dhigi lahayd 365 saacadood sanadkii 9 isbuuc sanadkii 2 bilood iyo isbuuc sanadkii ka waran hadii aad saacadaas dahabiga ah aad ka soo goyso daawashada TV-ga iyo dabagalka wararka aanan waxba kugu soo kordhinin adiga ama aad ka soo goysid kuwaalnaanta ciyaaraha iyo dabagalka waxa ku cusub ama aad ka soo goysid TikTok iyo social media dabagalkooda iyo dadkan had iyo gooraala jiraya oo dabagalaya qof kale shaqo uu soo qabtay go'aanka adaa iskale halkaas marka halkaa ka soo goysid maxaad is leedahay marka ay maalin kasta saacadaas aad isticmaasho oo maalin kasta aad wax akhrinayso oo maalin kasta aad jimicsanayso oo maalin kasta aad maskaxdiina sinayso maxaa ka dhalan kara ayaa is leedahay markii ay isfuulaan marka ay bataan saacadahaas markii sanad soo wareego oo 365 saacadood aad beeqaamiso 9 isbuucna aad ururiso 2 biloodna aad meel ku soo ogaato maxaa iska bedeli karaad
u malaynaysaa imisa iskiilaad baran kartaa iyo xirfad noloshaada ku soo kordhin kartaa imisa dhaqan wanaagsan ayaad noloshaada ka bedeli kartaa imisa jahli iyo aqoon yari ka soo kabsan kartaa u fiirso saacad kaliya maalin kasta oo aad shay kaliya ku qabataa meeqay noloshaada ka bedeli kartaa halkaas saac kaliya haddaad u goyso inaad luqad ku barato haddaad u goyso inaad xirfad ku barato haddaad u goyso inaad aqoon ku kororsato maxaa iska bedeli kara noloshaada weliba halkaas saac waxaad ka samayn kartaa inaad kala qaybiso 20 daqiiqo waxaan ka dhigayaa tusaale ahaan meditation iyo ta'ammul iyo inaan maaragtay maskaxdii relaxation u sameeyo nasiyo afkaartan tirada badan aan ka nasiyo iyo maxaa laga imtinaan iyo gratitude iyo abaal inaan ka hayo nicmooyinka nolosheeda ku jiraan haysto 20 daqiiqo waxaan ka dhigayaa jimicsi iyo jirdhis 20 daqiiqo waxaan ka dhigayaa akhrin markaasaad aqligii quudinaysaa maskaxdii nasinaysaa oo aad jirkiina jimicsi u sameynaysaa waxa kale xataa sameyn kartaa isla waxyaabihii aan soo sheegno saacadaas dahabiga ah lagu sameynay ayaad hal waqti oo kamid ah waqtigii laba shay ku qaban kartaa tusaale hadda aniga markaan jimicsiga sameynayo oo aan soconayo socodka dheer ee intaas oo kiiloomitir 8 kiiloomitir mararka qaar ama aan rucleynayo oo maaragtay aan xoogaa yar orod ku darayo socodka isla markaa waxaan dhageysanayaa podcast dhaga igu jira oo mufiid ah oo faa'iido leh oo i horumarinaya oo knowledge iyo skills iyo macaarif iyo macluumaad fara badan aan ka helay aqoon i kordhinaya macnaha u fiirso waana jimicsanaya maskaxdeedina waa quudinaya soo ma jeedid marka waxaa suurtagal ah inaad laba shay xataa isla hal mar ku qaban karto waxaad isku daydaa marka inaad samaysato saacadaada dahabiga ah maalinkii 24 saacada yaqaan waqtiga munaasabka ku ah dadku ku kala duwan yihiin qofba waqtiga ugu fiican saacad dahabiga uu ka soo saari kara qof kale waa uga duwan yahay adaa garan kara goormee ay ku aadan tahay ama ay ku haboon tahay inay noqoto saacadaada dahabiga ah laakiin waa laga maarmaan inaad saacadaas dahabiga ah soo saartid oo aad beekhamisid 365 saacadood sanadkii 9 isbuuc sanadkii 2 bilood iyo 7 sanadkii si naftaada ay horumar u gaarto oo aad u aragto inaad u socoto dhanka wanaagsan mahadsanid